iyadoo muddooyinkii u dambeeyayba degmada Wadaamago uu ka socday dhismaha dugsi boodhana oo lagu talagalay ardayda agoomaha ah ku dhaqan degmada Wadaamago ayaa waxaa maanta dugsigaasi boodhanka ah booqday wasiiru dawladda hore wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Riyaac maayirka degmada Wadaamago Aadan Saalix iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi waxayna soo indheeyeen qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay dugsigaasi boodhanka iyo halka uu haatan marayo dhismahani ay dhisayaan qorbajooga ka soo jeeda degmada Wadaamago ayaa waxaa mas'uuliyiinta halkaasi kormeeray ay si weyn ugu mahadnaqeen dadka muxsiniinta ah ee iyagu qaybta lixaad ka qaatay dhismaha dugsigaasi agoomaha iyagoo sidoo kalena baaq culus u diray guud ahaanba qorbajooga kala duwan ee ka soo jeeda degmada Wadaamago xukuumadda Soomaaliland iyo guud ahaanba dadka muxsiniinta ah ee ku kala dhaqan dacallada dunida iyagoo ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhamaystirka dugsigaasi boodhanka madarsadii agoomaha ee degmada Wadaamago oo uu ka socdo dhismo lagu ballaarinayo madrasadda ballaarintaas oo ah in laga dhigo markis ama boodhan maxay haytay ay galaan carruurta agoonta ahi dad baa ka shaqeeyay muxsiniina oo fikirkeeda iyo maskaxdeeda iyo maalkeedaba leh dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala jazaa ka siiyo oo ka abaal mariyo waxaanu kaloo iyadana macnaha warbixin ku soo daraynaa meeshan waxa ka socda dhisme aad u ballaaran runtii oo qolaala oo guriyii hurdada leh oo qaybtii cuntada leh oo masaajidkii leh oo qaybtii waxbarashada leh marka cid kasta oo muxsiniin ama cid kasta oo macnaha jaaliyadaha dibadda ama dawladda laamaha dawladda cid kasta baa noqoto ama shirkadaha ha noqoto waxaanu iyagana ka codsanaynaa oo deegaan ahaan kaga codsanaynaa inay ka qayb qaataan khayrka ballaaran maxay ahaatay agoonta lagu taageerayay wax loogu qabanayo halkan waxaan ugu soo booqday Cabdirashiid Riyaac oo hawsha u yimi awgeed iyo guddoomiyada degmada Wadaamago halkaan fadhino waa aragtaan waa qabiyo hoolasha waaweyn iyo kuwii qolalkii cuntada iyo kuwii hurdada iyo masaajidkii intaasoo dhami wax way waa wada qabiyo iminka meel wacanna way maraysaa runtii marka la eego oo markii hore 4-3 qol bay haayeen maanta waa wadanka dhan ay arkaysaan wadankaas oo dhan wuxuu u baahan yahay dadkii muxsiniinta ahaa ee bilaabay horta aad iyo aad u mahadsan haday habla yihiin iyo haday rag bay yihiinba waana agoomaha waa waxyaalaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sheegay in ay jannada nabiguna inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri ana wa kaafil yatiimi kahatin aniga iyo qofka kafaala qaata agoonku sidaasaan nahay wuxuu israaciyay nabigu labadii safarood ee salaabada iyo hustada salaabada waa murdisada iyo farta dhexe intaas isaga iyo qofku markaa nabigu isu jiraanba markaa nabiga xadiiskiisaasi waa xadiiska aan maqlayno in dadka agoomada la kafaala qaato dadkii kafaala qaatay aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa waxaanu leenahay hawsha waa taa maanta meel wacan bay maraysaa wasiirkuna waa noo yimi oo runtii hawsha 24 saacadood ku fikirayo na ka hadlaya deegaan ahaanna anagu wixii naga haboonaa gaari kari wixii aanu qaban karin qabana wax badan oo naarsan yihiin aad baanu idin salaameynaa jazaakumullah khayr ilaahay idinku abaal mariyo khayr jazaa waxaan joognaa madrasadii agoomaha ee Wadaamago oo iminka fayskeedii hore dhamaaday fayskii labaad baa la gelayaa insha Allah oo ah jingadii iyo qorigii iyo sida aragtaan jaajuurka oo talbiistii la saaro daaqadaha iyo albaabada fayska saddexaadna insha Allah wuxuu noqon doonaa finishingkii dhamaystirka xaalka iyo wixii furniture ama ay qalab u baahnayd ayaa fayska saddexaadna insha Allah noqon doonaa fayskii hore ma sha Allah waa ka gudubnay waana fiican yahay marka waxaan leenahay in waxa weeyaan hawshii si wanaagsan bay u socotay inkastoo ay imika muddo kooban taagnayd waxa runtii meeshanu waa sida la sheegay waa madrasad ama waa boarding meel lagu quudiyo oo la seexiyo oo lagu ilaaliyo carruurta agoomaha waxna lagu baro
marka waxay isku darsatay marka hore agoon dee lagu hayo waxay kaloo ku darsatay taxfiid alqur'aan oo dee la ogyahay qofka muslimka quraanka la baro ajarka iyo wanaagga ku jira waxay kaloo ku darsatay masaajidkii oo isna aynu ognahay qofka ka qayb qaata masaajid iyo dhismihii ajarka iyo abaalmarinta uu leeyahay marka saddexdii ugu mudnaa ama ugu ajarka badnaa qof islaamihi uu sadaqad ku bixiyo ama wax ku dhiibta bay halkan dhamaystiratay oo ah agoontii iyo taxfiid alqur'aankii iyo masaajidkii saddexdii baa wada socda guud ahaanna dee waa meesha cuntadoodii iyo hurdadoodii iyo noloshoodii dee lagu diyaariyey sababtuna waxay tahay madrasaduna waxay ka mid tahay 4 madrasadood oo muddo 5 sanadood furnaa muddada 5 sanadood kadib markii dib u eegis lagu sameeyay waxa runtii la ogaaday inaan sidii loo baahnaa aanay ahayn wax soo saarkii ama waxbarashadii caruurtu sababtii markii dee la daba galayna waxay noqotay caruurta agoonta ahay dhibaatooyin badan bay dee haysata markay dee inama yihiin inay yara koraan dee dhibaatay leeyihiin oo cidna ma imanayaan ama cidna amar kama qaataan oo waalid ilaaliya dee ma laha marna dhibaato nololeed baa haysata oo waxa weeyaan dee dantu meeshay geysaabay marba qabtaan dabeedna saasay waxbarashada ku joojiyaan amaba dhammaantood si kastaba ha u dul saaraadaane waxay dul saaran yihiin xoolaha noolina waxaynu ogno iyaguna waxay dul saaran yihiin roobka iyo meeshuu ka doo marka waxaa laga yaabaa in ardaygii dee roob ka doo 100 kilomitir reerkoodii guuro halkaa loo kaxeeyo dabeedna uu soo noqon kari waayo oo sida waxbarashadii kaga lunto sababtaas waxay keentay in 4 markis mid kamida laga dhigo boodhan si caruurtu uga maaranto nolosha adag ee ay u raacayaan dadkooda ee waxbarashada u joojinayaan oo looga reebi karo oo meel ay seexdaan iyo meel lagu quudiyo loo helo marka waxaana caruurta agoomaha laga soo ururin doonaa markiisyada kale ee jiray iyo meeshii kale ee ay ka imanayaanba madrasadanu ku talagalku hadda wuxuu yahay haddii alla ka dhigo inay 100 caruura qaado 100 inama ah hablaha weli hawshoodii waa dambaysaa insha Allah de iyagana waa la geli doonaa laakiin 100 inan in lagu hayn karo oo ay seexan karaan oo wax ka baran karaan oo ku noolaan karaan marka dewana aragtaan oo way dhowdahay marka waxaan leenahay cidii gacan ka geystana Ilaahay ha ka abaalmariyo cidii wax ku darsanaysana way u furan tahay albaabada furan sadaqada muhiimka ah marka waxaan leenahay hanala dhameystiro qaybaha ka haray cid kasto wax ku darsanaysa waxa jira dad badan runtii oo hadeer wax ku darsaday oo gudaha ah ilaa $3,000 dad baa ku darsaday gudaha jooga iminka nin Ilaahay khayr siiyo 100 xabadood oo jiingada na siiyay wixii kale ee galay waxay ka yimaadeen dad dibadda jooga oo markii horena gacanta ku hayay madrasadahan iminkana wada marka insha Allah waxaan leeyahay waa khayrka halkii ugu weyneyd loo soo si kastaba ha ahaatee dugsiga boodhanka ay haatan laga dhisayo degmada Wadaamago oo ah mid aad u ballaaran ayaa marka uu dhamaado waxa uu si weyn u anfici doonaa guud ahaan ardayda agoomaha ah ee ku kala dhaqan magaalooyinka Qorlugud Wadaamago Caynaba iyo deegaamadaasi Jaamac Boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland